aad iyo aad haatan waxaa kusoo dhawaataan sheekadani 24aad ee luqadda Talyaaniga. Sheekadan waxay ku saabsan tahay gabadhan halkan idan kaga muuqato. Waana sheeko aad iyo aad u xiiso badan sida sawirka ka muuqata. Sheekada waxay ku bilaabanaysaa sida tan: Il venerdì, maalinta Jimcada ah, ee il mio giorno preferito, waa maalintayda aan ugu jeclahay della settimana, toddobaadkii. Finalmente, ugu dambeyntii, posso rilassarmi, waan iska nasan karaa dopo una settimana, isbuuc kadib, faticosa oo ah daal. Okay, non devo svegliarmi presto, dhawaan uma soo kici dooni per preparare si aan u diyaariyo la colazione, quraac, oo ama per occuparmi in aan ka walwalo di fare tardi, in aan ka daaho al lavoro, shaqada ama shaqo. Okay, again waan ku celinayaa. Il venerdì, maalinta Jimcada ah, ee il mio giorno preferito della settimana, waa maalintayda aan ugu jeclahay toddobaadkii ama isbuucii. Finalmente, ugu dambeyntii, posso rilassarmi, waan iska nasan karaa dopo una settimana faticosa, isbuuc daal ah kadib, ama hal isbuuc oo daal ah kadib waan iska nasan karaa. Okay, non devo svegliarmi presto, dhawaan uma soo kici dooni per preparare si aan u diyaariyo la colazione, quraac, oo ama per occuparmi in aan ka walwalo ama aan ka baqo di fare tardi, in aan ka daaho al lavoro, shaqada. Waxaan rajeynayaa inaad fahanteen. Xoogaa cashirka waxaa u muuqdaa wax yar inuu iska yara adag yahay, laakiin ma arko. Okay, marka la saacid ay aqrinaa il venerdì il mio giorno preferito della settimana. Finalmente posso rilassarmi dopo una settimana faticosa. Non devo svegliarmi presto per preparare la colazione o per occuparmi di fare tardi al lavoro. Okay, Soomaaliya ku aqrinayna. Maalinta Jimcada ah waa maalinta aan ugu jeclahay toddobaadkii. Ugu dambeyntii, waan iska nasan karaa isbuuc daal ah kadib. Okay, uma soo kici dooni dhawaan in aan diyaariyo quraac ama in aan ka walwalo in aan ka daaho shaqada. Okay, fasiraadana ama Soomaalihan marka loo aqrinayo noocaas waxay gabadhan iska hadal bixinaydo. Maalinta Jimcada waa maalinta aan ugu jeclahay toddobaadkii. Ugu dambeyn, hal isbuuc oo daal ah waan iska nasan karaa camal. Okay, gabadhan maadaama ay qab shaqeeya tahay Jimcadii badanaa Talyaaniyaasha ama haddii kale dadkaas oo reer Yurub, Sabti iyo Axad waxay u tahay Khamiis iyo Jimce sidan oo kale. Hadda iyada venerdì wuxuu ugu aadan yahay Arbaco oo kale, waxaa soo socto 2 maalin oo nasasho ah. iyada marka maadaama Jimco hadalkan ay sheegaydo, waxaa soo socto Sabti iyo Axad. Marka Sabti iyo Axad waxay leedahay posso rilassarmi, waan iska nasan karaa dopo una settimana faticosa, 5 maalmood ama isbuuc daal ah kadib. Non devo svegliarmi presto, dhawaanna uma soo kici dooni, maba soo kici dooniba, hurdadii dheereys rabtanana. Per preparare, okay, labada markii biyaal badana isla raaxay. Per preparare, in aan diyaariyo la colazione, quraacda, oo ama sidoo kale mararka qaar oppure waa la dhihi karaa, laakiin hadda waxaan qoran oo ama per occuparmi, inaan ka walwalo ama ka baqo di fare tardi, inaan ka daaho. Eraygan tardi daahitaan waaye al lavoro, shaqada. Okay, waxaan rajeynayaa inaad fahanteen. Svegliarmi waa soo keed waaye, rilassarmi waa nasasho, finalmente ugu dambeyn ama finally. Okay, Soomaalida isticmaasha. Preferito English camal waaye, finalmente English camal waaye. Kan rilassarmi English camal waa xitaa rest ka dhow yahay faticosa, daal. Okay, kan English waa ka fog yahay. Svegliarmi English waa ka fog yahay preparare, English waa dhow yahay colazione, English waa ka fog yahay per occuparmi, waa ka fog yahay
daardi uu ka fog yahay lavoro oo ka fog yahay okay isun problema haddii aad fahantay kusoo qor commentiga waan fahmay haddii aad fahmin soo qor ma fahmin ama ku celiso muuqaalka si aad u fahantid